kusoo barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu waaweyn waxa ay kala yihiin madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre ayaa maanta ka qayb galay aaska laba sarkaal oo shalay lagu dilay qarax miino kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose dawladda Soomaaliya oo ka hadashay ayaan idin haynaa warar kale caawina waxa kamid ah malaayiin ayaa macluul ku sugan dalka Yemen waxa iminka socda wada xaajood u dhaxeeya labada dhinac ee ku dagaalamaya halka madaxa sare ee dhaqaalaha ee Huawei ayaa maxkamad la soo taagaya shirkadda tiknoolajiyadda ee Shiinaha ayaa cambaareysay xiritaankan magaalada Hargeysa waxaanu idinkaga haynaa koox dhalinyaro ah oo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ku soo bandhigta munaasabadaha dadku ku kulmaanaya aroosyada kala soo BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa aniga Maxamed Cabdi Xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay laba sarkaal oo shalay lagu dilay qarax miino kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa ka qayb galay aaska labada sarkaal oo kala ahaa General Umar Aadan Xasan iyo General Abdi Ali Gas Jamaame askar kale oo ciidanka dawladda kamida ayaa halkaasi ku dhimatay kadib markii miino dhulka lagu aasay lala eegtay gaari ay ku safrayeen ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi oo loo yaqaan indha qarshe ayaa sheegay in ciidamadu ay hore ugu dhaarteen in ay dalka u dhintaan laakiin annaga mar hore waxaan diyaar garownay inaan dalkayga iyo dadkayaga iyo sharafta ummadda Soomaalida aan dhigayo ugu tabarracno iyo dadnimadayada saasay ku dhinteen ninkii ilaahdo Umar Dheere iyo Cabdiba waxay hore ugu dhaarteen in dhigooda u horaan wayna muujiyeen maantay waxaan kaloo u sheegayaa nabadiidka iyo argagixisada waxaan ballan qaadaynaa inaan ka aarno oo aadin marnaba ku guulaysan xumaanta aad shalay samayseen fulinimada ah oo aad ka baqdeen inaad la dagaalantaan aad go'aansateen inaad miino tuuga u dhigtaan kuma guulaysanaysaan waxaan ballan qaadaynaa inaan mataqaan aad ka shalaydaan go'aankaas khaldan ee aad ku socotaan waxaan idin leeyahay ka waantooba وهاجنا naxariis Ilaahay ha siiyo cilmi baaris cusub ayaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan haddadan ugu jirin isdhexgalka lala sameynayo dawladaha Itoobiya iyo Eritrea cilmi baaristan oo sameeyay machadka cilmi baarista ee Sidra ayaa lagu xusay in dawladda ay wali la harjadayso amniga iyo arrimaha dawladnimada kuwaas baa la yiri oo ka hor imaan kara in ay la jaan qaadaan isbedelkan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa dhawaan ku heshiiyay in ay wada yeeshaan iskaashi dhaqaale madaxweyne Farmaajo oo arinta ka hadlayna waxa uu sheegay in iskaashiga dhaqaalaha uu dan ugu jiro Soomaaliya iyo in ganacsatada Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan xiriirka dhaqaalaha ee dalalka dariska la ah Soomaaliya si kastaba ha ahaatee cilmi baaristan ay Sidra sameysay waxa lagu xusay in heshiisyada geeska Afrika ay dawladda Djibouti muhiim u tahay marka laga eego dhanka dhaqaalaha iyo amniga sidoo kale khilaafka xuduudaha ee guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan gudaha Itoobiya ayaa iyaguna saameyn kara heshiisyada sida warbixinta ku qoran hadaba waxa qadka si toos uga jira magaalada Garowe Guuleed Saalax oo kamid ah dadkii iyagu isku hoolay in ay wax ka qoraan warbixintan Guuleed Saalax ku soo dhawo Somali BBC Somali TV ugu horeyn aan ku weydiiyay maxaad ku saleyseen qorista warbixintan ومعصنتها محمد وأنا دوّهاي أو سلام يا عديقة ودمان شغالة BBC-da runtii sidaa usoo koobtay si fiican weeye cilmi baaristan waxaan ku sameynay isdhexgalkan hadda ka dhex bilowday geeska Afrika oo uu garwadeenka ka yahay ama hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan ku sameynay cilmi baarisyo badan oo horay looga sameeyay geeska Afrika iyo caqabadaha haystay iyo dhibaatooyinka maaragtay soo jireenka ah ee muddo maaragtay ka jiray iyo fursadaha kan hadda bilowday iyo sida iskula jaan qaadi karaan anagoo tix raacayna taariikhda geeska Afrika wareysanayna dad badan oo khubaro ah oo geeska Afrika ku nool yani khibrad dheerna u leh duruufaha badan oo ay soo martay iyo fursadaha ay heli karayso isdhexgalkaani haddii uu maaragtay miro dhalo iyo haysta isdhexgalkan laftigiisa
ayaan ku salaynaa cilmi baarista. waa gartay Guuled dhowr qodob ayaa ku jira haddii aan mid ka soo qaato waxaad tiraahdeen dan uguma jirto Soomaaliya maxaad ula jeedaan maxamedow isdhexgalkani runtii guud ahaan yani caalamku maanta waa isku soo furfurmayaa waxaa loo baahan yahay in wax badan la wada qabsado laakiin marka la fiirsho duruufta maanta Soomaaliya ay ku jirto isku duruuf maaha Ethiopia oo runtii dawlad xoogan ah oo aysan qalalaasaha Soomaaliya ka dhacay marna uusan ka dhicin isku duruuf maaha Eritrea duruufta maanta Soomaaliya ay ku jirto inay ku degdegto inay heshiisyo saxiixdo waxa runtii aad iyo aad Soomaaliya waxa xasuusataa sidii fududaa ee aynu ku galinay muranka badii Soomaaliya markii Kenya la saxiixay heshiiska la saxiixday marka meelahaas waxay tahay meelaha u baahan in aad looga taxadaro khubaro badan oo Soomaaliya la kaashado aan lagu degdegin in heshiiska qalinka lagu duugay laga hormariyo lafagur tiro badan khubaro badan oo Soomaaliyeed laga tixgeliyo farsamo ahaan loo fiirsho dheelitiro danaha Soomaaliya ugu jiray isdhexgal Guuled aad iyo aad ay u mahadsantahay su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyo adigoo raalli ah waad aragteen heshiiska la galay warbixinna waad soo saarteen maadan arkinaya wax uu ku wanaagsan yahay heshiiskan isaga maxamedow in guud ahaan kala faa'iideysto oo geeska Afrika kala faa'iideysto Soomaaliya baa ugu jirta dalalka baa ugu jirta laakiin waxa anaga aan xoog saaraynaa waxa weeye in aad iyo aad looga fiirsado inta heshiisyada la gelin oo yani la sameeyo yani talageliyo qaanuuniya la sameeyo lambar 2 inaysan qabsan oo ahmiyadii iyo attentionkii uusan u wareegin xaggaas gudaha laftigeedii oo runtii u baahan in aad looga shaqeeyo dowladda federaalka ah aysan xooga kaliya saarin isdhexgalkaasi ay ahmiyadii gudaha iyo barnaamijyadii uga jiro ayadana xooga si fiican loo saaro aad u mahadsantahay halka ayaanu kusoo gabagabaynaynaa in gudaha xooga la saaro bal markaana haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa generaalka sare ee Joseph Dunford ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay tahay in ay sii joogaan Afghanistan si ay uga hortagaan in argagixisadu ay weerar la mid ah kii September 11 ku qaadaan dalka Mareykanka hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaysa in ay heshay warar macquul ah oo sheegaya in qofkii afraad oo haween u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dalka Sacuudiga lagu jiro dilay xabsigiisa Sacuudi Carabiya ayaa hore u beenisay in 3 dumar ah oo hore loo xiray sanadkan loo تعديو أي كم يدهين كوا قلبه وهاجاج waxaa maalintii labaad ka socda wada hadallo dawladda Yemen iyo u dhaxeeya falaagada Xuutiyiinta kuwaasi oo ay martigelinayso Sweden madaxda xukuumadda ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha Sancad dib loo furi doono hadii ay diyaaraduhu marka hore soo maraan baa la yiri garoomada kale ay dawladdu gacanta ku hayso si loo baaro garoonka Al Rahaba ayaa isagu 3 sano ugu dambeysay xirna xulufada dawladda Sacuudiga ay taageerto ayaa hawada iyo badda xukunta iyadoo ay Xuutiyiintu rabaan in hawada iyo badda loo furo waxa jira laba qodob oo kala ah oo muhiim ah oo qaramada midoobay doonayso in laga heshiyo kuwaas oo kala ah bangiga dhexe iyo waliba in laga hortago in dagaal culus uu ka dhaco xidayda oo ah dekada dalka ugu weyn oo ay hadda gacanta ku hayso Xuutiyiinta isbaysiguna ay doonayaan inay qabsadaan wada hadalladan ayaa keenay rajo cusub oo ah inay nabad ka dhalin karaan dalka Yemen Mawlid Xaaji Cabdi ayaa inoo haya xaaladda Yemen ayaa meel adag maraysa carruurta Yemen ayaa u dhimanaya gaajo iyo cudur dagaalka lagu hoobtay ayaa kumanaan dhalinyaro ah ku geeriyoodeen tan iyo markii dagaalku uu bilowday laakiin imika rajo ayaa la qabaa iyadoo ay bilowdeen wada hadallo u dhaxeeya labada dhinac ee kooxda Xuutiyiinta iyo dawladda oo lagu qabanayo Sweden qaramada midoobay ayaa halkan isugu keentay labada dhinac waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in dadka qolkan fadhiya ay yihiin dadka mustaqbalka Yemen uu gacantooda ku jiro waxaan rabaa inaan idiin sheego kale yaanaynu mustaqbalkaasi luminin furimaha dagaalka ee Yemen ee lagu dhamaaday waxaa ka jira wadamo kale oo ku hardamaya Sacuudiga iyo Iiraan dhammaantood nabad ayay ku dhawaaqeen laakiin dagaalka waa ay wadaan magaalada caasimadda ee qadiimiga ah ee Sanca dadku waa ay og yihiin sida ay xaaladdu u adag tahay
wadahadallada ka socda qasrigan ku yaalla Stockholm lagama filayo in ay xal keenaan, laakiin iyadoo ay Yemen qarka u saaran tahay in ay dunto, waxaa la rajaynayaa in tallaabo kasta oo la qaadaa ay waxtar uun yeelan doonto. وهاجا قاسمها dhaqaalaha shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha ee Huawei ayaa maanta maxkamad Kanada ku taala la soo taagi doona. Xariga Meng Jahong ayaa wali aan la faahfaahin laga bixin. Aisha ayaa ka waramaysa. shirkadda tiknoolajiyadda Huawei ayay maanta hareereynayaan xiisado ganacsi oo caalami ah. saacadaha soo socdo ayaa mid ka mid ah madaxdooda la horkeenaya maxkamad ku taala dalka Kanada. agaasimaha qaybta dhaqaalaha Meng Wanzhou ayaa laga taxaabay magaalada Vancouver oo ay diyaarad kale ku bedelaysay kadib codsi ay Mareykanku ku soo dalbadeen in loo soo gacan geliyo iyadoo loo haysto inay qalab casri ah ka iibiyeen dalka Iiraan. haddiiba ay tahay sababtani ta loo haysto, dowladda Shiinaha ayaa sheegaysa inay wax sharaxaad ah Mareykanka iyo Kanada toona ka siin doonin kiiskan, waxaana ay sheegeen in dadka la iska xidha ay tahay xadgudub xuquuqda bani'aadamka. shirkadda ayaa soo saartay warqad furan oo ay u dirtay dhinacyada ay wada shaqeeyaan, waxaana ay sheegtay inaan la siinin macluumaad waafiya oo ku saabsan sarkaaladan laga xiray, iyadoo ku andacotay inay fuliyaan dhammaan sharciyada caalamiga ah. laakiin sida uu sheegayo ra'iisul wasaaraha Kanada, waa nidaam caadi ah oo dadka la isugu gacan geliyo. nahay dal ay madax bannaan yahay garsoorkiisu, xubnaha garsoorka ee dalkan ayaa iyagu go'aan qaatay aanay ku jirin wax cadaadis siyaasadeeda. laakiinse waxaa kaloo idiin sheegayaa inuu kiiskan yahay kiis maxkamad imika hor yaalla, marka ma habboona inaan ka faalloodo. hase yeeshee, wakhtigan ay Mareykanka codsanayaan in loo soo gacan geliyo sarkaal shirkadda Shiinaha ah ayaa noqotay mid lala yaabo, waxaanay imaanaysaa iyadoo 9 cisho oo xabad joojina la isku raacay oo ah dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ee faraha ka sii baxaya. haba wanaagsan daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka, waaniga waa Maxamed Cabdi Xaraare. bal aan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa maanta ka qayb galay aaska laba sarkaal oo shalay lagu dilay qarax miino kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. malaayiin ayaa macluul ku sugan dalka Yemen, waxaa iminka socda wada xaajood u dhaxeeya labada dhinac ee ku dagaalamaya halka. garyaqaano farshaxamiistayaal iyo qubaro raadraaca taariikhda ayaa ka walwalsan xaaladda dhismaha taariikhiga ee Taj Mahal. hawada wasakhaysan ayaa la sheegayaa in ay waxyeeshay. kooxo kala duwan ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo dhismahan sii gaboobaya. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya. Taj Mahal waxa uu ka mid yahay 7 cajaa'ib ee adduunka, laakiin imika halis ayuu ku jiraa. qarnigii 17aad ayaa boqorkii Shah Jahan uu dhisay xaaskiisa Mumtaz Mahal, waxaana imika halis ku haya biyaha iyo hawada wasakhaysan. midabkii marmarku wuu caddaaday, waxaana ka soo muuqda dhismaha dildilaac ay sabab u tahay daayactir la'aantu. culimada cilmiga raadraaca taariikhda ayaa ka walwarsan in seeska dhismuhu dabcayo. webiga Yamuna ee agmara Taj Mahalka ayaa noqday meel wasakhaysan, bulaacado iyo qashin ayaa si baaxad leh loogu qubaa. waxa ugu horeeya ee la sameeyo sida caadiga ah waa in la hubiyo in biyaha webiga Yamuun ay si qumaati ah u socdaan. minaaradda sare aad ayay u culus tahay, qiyaastii waa 12,500 oo tan. heerka biyuhu haddaanay buuxin, waxaa dhici karta in ay leecdo ama degto. maxkamadda sare ee Hindiya ayaa soo faragelisay xaaladda Taj Mahalka si loo badbaadiyo kadib dacwadu gudbiyey garyaqaankan caanka ahi. haddii Taj Mahal aanan la ilaalin, kuma jiri doono goobaha dhaqanka caalamka. dakhli badan ayaa ka soo xarooda, laakiin haddii aynu 1% keli ah ku qarash garayno, wuu badbaadi. laakiin qaar kale ayaa leh waxaa maqaamka loo ilaalin karaa bay yidhahdeen sidii 400 sano ka hor loo dhisay uun. maanta Taj Mahal howlihiisa farshaxanka dhaqanka hoos ayay u dhaceen. yaa beddelaya? farshaxan yaqaan unbaa beddeli lahaa, laakiin yaa ka shaqaynaya? way isdhimaysaa imika.
boqor shahjahaan ayaa u dhisay taaj maxaal si uu u noqdo calaamad jacaylka u taagan caalamiga ah laakiin wakhtiga ayaa ku yar khubarada rabta inay badbaadiyaan waxaanay ka digayaan haddaan la qaadan bay yidhahdeen tallaabo degdega in dhismahan cajiibka ahi uu noqon doono uun mid laga akhristo bugaagta iyo xusuusta bay yidhahdeen kuwii nasiibka u helay inay arkaan wagaag dabcan taaj maxaal waa calaamad caalami ah oo badbaado u baahan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawana weeraryahanka Boca Juniors Carlos Tevez ayaa sheegay in kulanka lugta labaad ee finalka kooxda ay Madrid kula ciyaarayso kooxda kalenta mid laga xishooda uu yahay ciyaarta u dhaxaysa Boca iyo River Plate ayaa laga soo wareejiyay Buenos Aires kadib markii ay taageerayaasha kooxda River Plate ay weerar ku qaadeen baska kooxda Boca weeraryahanka reer Argentine Carlos Tevez ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi uu meesha ka saaray riyadii uu ka qabay in ciyaaryahanku uu ciyaartan dhammaadkeeda ku ciyaaro dalkiisa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee berrina waxaa fooda isdaraya kooxaha Bournemouth iyo Liverpool kooxda Liverpool ayaa Burnley 3-1 ku maquunisay Arbacadii inkasta oo uu ciyaaryahanka Joe Gomez oo dhanka difaaca uga ciyaara Liverpool uu lugta ka dhaawacmay taas oo kaliftay inuu ciyaaraha ka maqnaado muddo ilaa 6 isbuuc Arsenalna waxa ay is arkeen Manchester United waxay ciyaartaasi ku dhamaatay barbardhac Arbacadii ayay dhacday waxayna Manchester wajahaysaa ama Arsenal ay maanta wajahaysaa ama berri wajahaysaa Huddersfield Town halka Unitedna ay Fulham la ciyaari doonto kulamada kale waxaa kamid ah Chelsea ayaa la kulmaysa Manchester City Leicester City waxa is arkayaan Tottenham Lance Armstrong oo ahaa nin xagga tartamada baskiilada ku caan baxay ayaa sheegay in maalgelin hore uu ku maalgeliyay shirkadda Uber ay badbaadisay qoyskiisa waxaa lagala noqday 7 koob oo uu tartanka Tour de France ka qaaday iyadoo isla markaana gabi ahaanba laga mamnuucay tartamada baaskiilada sanadkii 2012 ka hor inta aanu qiran in uu isticmaali jiray daroogada tabarta kordhisa laakiin wuxuu sheegay in 100,000 oo uu ku maalgashaday shirkadda Uber sanadkii 2010 ay wax weyn u qabatay barnaamijka tiknoolajiyadda caawana waxaanu ku soo qaadanaynaa saynis yahanada oo markii labaad 2 sanadood gudahood baktiyay warshada adduunka ugu weyn ee burburisa atomka iyo sidoo kale dadka lacagta ugu badan ka hela YouTube-ka oo la shaaciyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa eegaya saynis yahanada ayaa markii labaad 2 sannadood gudahood baktiyay warshada adduunka ugu weyn ee burburisa atomka ee la yidhaahdo Hadron Cylinder oo ku taala Geneva warshadan ayaa waxyaabo badan oo caalamka dushiisa lagu darsaa 2 sannadood ayay warshadan xidhnaan doontaa iyada oo dib u habayn lagu samayn doono si loogu tijaabiyo waxyaabo cusub shirkadda Forbes ayaa magacowday dadka caalamka lacagta ugu badan ka hela YouTube-ka lacagta ugu badan waxa hela wiil yar oo 7 jir ah oo tijaabiya alaabada lacaabka ah ee caruurtu ku ciyaarto oo ay samayso shirkadda Ryan of Ryan waxaanu ka helay lacag dhan 22 milyan oo dollar waa lacag aad u badan waxaana filayaa inuu iminka haysto dhammaan alaabada lacaabka ah ee ay caruurtu ku ciyaarto tilaacan ah oo Hollywood ka tirsanaya soo bandhigay waxa habeenkii soo jeediya waana TV-yada aynu daawanno waxa uu sameeyay muuqaal video ah oo laga daawan karo internetka dadkuna ay muuqaal ahaan uga wada hadli karaan muuqaalkan waxa uu ka dhigi karaa filmo badan oo qaali ah in lacag jaban lagu sameeyay oo lagu matalay ugu dambayntiina haddii aad ka cabsi qabto inaanay dhirtaadu helin qorrax ku filan waxaa laga yaabaa in roobadkani uu ku caawin karo saynis yahano ayaa caleemaha dhirta waxa ay ku xidheen qalab qiyaasaya saamaynta ay qorraxdu ku yeelanayso geedkaaga qalabkaasi ayaa qorraxda kuleelkeeda u duwaya meelaha geedku uga baahan yahay waxa aanad helaysaa geedkaagii oo ku shaqaynaya qalab qorraxda u sahlaya haddii aan dhanka teknolojiyadda ka soo degan roganana dhaqanka iyo hidaha ayaa astaamaha ay dadka dunida ku nool ku faanaan kooxo dhalinyaro ah oo isu xil saaray sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen dhaqankii hore ee Soomaalidu ay lahayd ayaa ka howlgala magaalada Hargeysa
munaasabadaha dadku ay ku kulmaan iyo aroosyada ayay maaweeliyaan martida ewel waxaa lagu maaweelin jiray heeso Soomaali ah iyo kuwa afaf qalaadba isugu jira kooxdani waxay wax ka bedeshay arrimahaasi waxay suurto galiyeen in ciyaaraha dhaqanka iyo ruwaayado ay jilayaan ay soo bandhigaan waa kan Cabdiraxmaan Dheegsan oo aasaasay kooxda Hidde oo inoo sharaxa magacaygu waa Cabdiraxmaan Dheegsan oo ah gudoomiyaha Hidde Academy hiddaha iyo dhaqanka barashadooda waxaan bilaabay 15 sano ka hor sababta keentay aasaaska Hidde Academy waxa weeyaan kadib markii dadkii ay miigi ka soo guureen ayaa waxa timid in dadkii magaalada ku dhashay aanay arag hiddaha iyo dhaqankoodii oo wax weeyaan dhalinyaradii oo aan haysanba goob ay wax ka bartaan in aan wax weeyaan kol hadii aanu ciyaarihii baranay in aan anagu noqono marjac ay hiddiyo dhaqanka ugu noqdaan koox 12 qof 6 wiil iyo 6 gabdhood ah ayaanu ku bilownay markii ugu horeysay 2012 bishii afraad bay ahayd marka runaantii imikana waxay marayaan muxuu ahaayay waa 24 tiradu runtii caqabad naguma aha oo 24 waxa weeyaan runaantii waa laba group oo kaliya laba kooxood oo kaliya un bay noqon karayaan والله ciyaaraha hiddaha iyo dhaqankeenu haynaa aad bay u tiro badan yihiin ilaa 40 way gaarayaan waxa weeyaan ciyaaro macallin baramayaal dhaqan ayna kala bareen oo mid basaanu inuga reebaynay ayay markii dambe isla bateen oo marka ay noo noqdeen tirada intan leh bergii hore waa nala yaabi jiray waa maxay waxaana ciyaarisan waxaan waa laga baxay miyiga oo qof u haystay wax laga baxay tahay qof u haystay wax laga xishooday inay tahay qofba gees buu la kici jiray waxay hore u arkeen meehen run ahaantii dadaal badan iyo wax weeyaan dhabar adayg badan maanta waa lagu xaragooda mariyay hiddaha iyo dhaqanka run ahaantii imika waxa weeyaan xafladaha aroosyada oo kale wad arkaysaa sidaan u kafeynay waxa weeyaan habeen walba looga tumayo xafladihii kale iyaguna magaaladii ka dhacayay waa waxyaabahan isleenahay wad soo kordhiseen oo waxa weeyaan aanu u bilownay dadkii iyagiina waxa weeyaan baahidoodii kaabtay wallahi cid gacan qabata oo dhaqaale ama qaab kale noo gacan qabata ma jirto oo inkastoo ay jirto wasaarad qaranka u qaabilsan dhaqanka haddana waxa weeyaan anagu ba iska feena waliba ku darso oo waxa timaada mararka qaar wasaaradaha qaar ama dawladda aanu u fulinayno adeeg dhaqan in ay raahdaan muxuu ahaayay qarankiini wax ku darsada oo anagu kuwa tabarucno hiddiyo dhaqankii oo waxa weeyaan qarankaygii tabarucaadba aanu u sameeyno qorxana marka joogti iyo jaanta la isla helo ugu dambeyntiina wabiga qabow ee fadhiya ee dalka Shiinaha ayaa la kala jaraya howlgalkan ayaa loogu diyaar garoobayaa dabaaldega ugu weyn dunida ee barafka qiyaastii 110,000 oo mitir cubic oo baraf ah ayaa la kala jarayaa biyaha wabiga ayaa laga jarayaa Songua wabiga la yiraahdo waxaana loo dirayaa Harbin si loogu dabaaldego baa la yiri sanad guuradeeda mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo